jawaabo badan oo aan ka hadlo ummadda Soomaaliyeedna waxay kulligood farta ku wada fiiqeen waxa ugu weyn ee Soomaaliya maanta ay ka digweysay inay tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba. Cabdiqaadir maxaad ka qabtaa fikradaas adigu? ganacsatada Soomaaliyeed anigu maalin dhaweyd waxaan ugu baaqay Nairobi markaan joogay inay wadanka dib u dhisaan. fikradan wada Nairobi aadan waxay ahayd aan kala shiray State Department iyo ganacsatada gooni oo Nairobi joogto waxay ahayd dhibta ganacsatada Soomaaliyeed wadanka ku hayaan waxa weeyaan oran kara ayaga oo dhisay wadan ayaan lahayn wadankoodana uu noqdo wadan dukaafada laga kala cararay sababtoo waxa weey hadii wadankii maanta xoolaha aan maanta Kenya galin ama Dubai galin kaliya hadaan galin wadankeena dhalinyarada hadda burcadka noqotay ama dhalinyarada maanta isdilaysa ama dhalinyarada maanta dhibta sameynaysa shaqay wada helaayeen wadanka waa noo dhisnaan lahaa wadanka haduu dhisan yahayna wuxuu noqon lahaa settlement baa gaar lahaa laakiin hadii wadankii maanta xoolihii Nairobi markaan tagay wadanka waxa dhisan Nairobi waa Soomaali weey waa ganacsatada Soomaaliyeed weey marka halkaas waxaan oran karaa dib bay ku leeyihiin sababtoo waxa weey hantidooda bay banaan ku dhisayaan meesha wadanka ku dhisan lahaayeen waa mahadsantahay Cabdiqaadir hantidooda ayay ku dhisayaan wadanka dibadiisa oo aysan gudihii wadanka aysan ku dhisayn taasoo maaragtay sameyn kartay shaqo dadka dhalinyarada ah ee maanta qoryaha sita ay dhigi lahaayeen qoryaha oo ay qaadan lahaayeen jeegag mushaar u ah su'aasha kale ee aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maadaama aad madax ka tahay urur ganacsato ee gobolkan Ohio adiga aan mas'uul ka ahayn waqooyiga America ma ku tala jirtaan gobol ahaan iyo guud ahaan waqooyiga America inaad sameysaan barnaamij nabadoon ah oo ay ganacsatada Soomaaliyeed soo abaabuleen oo nabad loogu raadinayo wadanka Soomaaliya waxaan ognahay 19 sano la soo dhaafay barnaamij walba oo loo sugu yimaado oo nabadoon ama madaxweynaha lagu doorto ama baarlamaan ha lagu doorto ganacsatada banaanka ay ka taagnaayeen runtii xaqiiqdii waan ku dhaaqnay waxa jirtay safarkayga intaan galin I think waxay ahayd 1st April this year waxaa waraysi la yeeshay Voice of America waxaana waraysigaas aan ku baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay iskugu yimaadaan July this year hadda la soo dhaafay intaan dhibta bilaaban bay ahayd interviewgaasna wuxuu dhacay waxaan jeclahay February bay ahayd baaqaas ganacsiga Somali American Chamber of Commerce uu sameeyay waxay ahayd in ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan ay iskugu yimaadaan Muqdisho ay ku sameeyaan shir degdeg ah ay halkaas ay ku sameeyaan corporation oo dib u dhis ah wadanka sababtoo waxa weeye haddaan anagu maalkeena isu keenno wadamada maanta waxaan gareynayaa corporations way Soomaalida maanta hantidii 60 ama 70 ama 80 la haysto ka badan baa la haysta haddii maanta la isu keeno oo wadankii la dhaho dadkaas maaragtay aan dooranay oo maaragtay corporations nooran gareenaya haddii noqon warshado yar la dhiso haddii noqon maaragtay houses la dhiso haddii noqon wax la dhiso waxaan dhahay aan iskugu imaan Muqdisho aynu sameeyno conference ganacsiga halkaas maalgelinta wixii ay ganacsatada isku daraan waxa march markaas loo weydiin lahaa adduunka doonarka sameynay waxa dhacday unfortunately Nairobi markaan tagay aan la shiray dadka siyaasadda Soomaaliya xoolaha gacanta ugu haya wixii maaragtay adduunka ugu baaqay waxa ay sheegeen yani 130 milyan oo dollar oo waagi Belgium qayb ka mid ah lacagta lagu deeqay inay bixin lahaayeen sababta bixin lahaayeen waxa waaye sababta ah wadankii aan wali dawladdiisa noqon dawlad maaragtay transparency oo degan oo meel wax loo dhiibi karaa haddana waxaan dib ugu soo noqonaynaa barnaamijkeena wargelin xubintiisii xaqiiq raadis waxbarasho laga sameeyay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata xawaalada ayaa waxaa la soo ogaaday in 3750 xafiis oo ganacsatada xawaaladaha ay ka furan yihiin adduunyada oo dhan waxaa warbixintaas ku qoran in ugu yaraan maalintii 40 qof ay wax ka diraan 3750 qofka ugu yarna uu diro $100 waxaa la soo xaqiijiyay in ganacsatada xawaaladaha ay Soomaaliya geliyaan sitimaankii $50 milyan oo dollar siinayna dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas Minnesota gaar ahaan magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis in maalinta Talaadada ah ee bisha tahay 7 November la soo deyn doono barnaamij khaas ah oo af Soomaali ku hadlaya kuna saabsan cudurrada la isugu gudbiyo galmada
barnaamijkan wuxuu soo baxayaa maalinta talaadada ah bishuna ay tahay 10 November 7 fiid ayaa waxaa ka daawan kartaa TV-ga St Paul oo ah TV-ga SPNN loo yaqaan channelkuna uu yahay 19 wuxuuna isla markaasna ka soo bixi doonaa raadiyaha loo yaqaan KFAI 7:00 fiidnimo mowjadaha raadiyahani waa 9.3 iyo 106.7 waxaa kaloo tegi kartaa Carmel Mall lambarka 185 waata daawadayaal waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena waxaan rabnaa ilaahay hadduu yiraahdo toddobaadka soo socda inaan idin bilowno taxane aan ugu magac darnay waxaan u soo joogay taxanaas oo noqon doona mid aan ka wareysan doono dadkii Soomaaliyeed ee joogay xilligii gobonibdoonka iyo Soomaalida maantaba waxyaalihii ay soo arkeen iyo waxyaalihii ugu yaabka badnaa qayb yara oo kamid ahna nala daawada maalintii xamar dhammaan dawladnimadii laga qaatay oo lagu wareejiyay aadan cabdulla cusmaan madaxweynenimadii habeenkii waxaanu aad ugu barinay horseedka leegadan kamid ah waxaanu ku dhafaray tarabuunkii meeshii gubernator ka horeysay